marka ma habeenkii dibadda markaa u hoytaan miya أصح كدرس dibadda saxtan hurdi macaan buu ku jiraa waqtigu waa 12 habeenimo waxaa waqtigana lagu jiraa waqtigii qaboobaha qof kastoo guri lahaa gurigiisa ayuu hoyday si uu markaas dhaxanta uga galo kii busta haystay bustihiisa ayuu hoos ka galay bas waxaa jira asxaab badan walaalo badan oo intaaba haysan guri aan haysan maryo aan haysan ay kaga gaashaataan bustayaal aan haysan sidoo kale inay casheeyaan iyo inaanay casheyn caawa isugu mid ahayd oo haddii ay caawa helaan aan meel ka ogeyn beri subaxii quraacda meel ay ka doontaan waxaan markaasi gudagalnay wejigii saddexaad ee aan walaalaheen ku gaarsiinaynay markaa ayaan la elkeeba igu wehelinaya koorar dhowr ah markaa waxaanu siinaynaa qof kasta oo markaa naga soo horbaxa oo miskiin ah oo markaa derbi jiif haddii bilaa cashe yihiinna aan isku dayno bal markaa inaan cashaysiino waxaynu sidnaa qayb yar oo ka mid a jacketiskii waxaan isku dayi doonaa insha allah sida cabdishakuur sheegay inaynu dadyogaynu la kulanno caawa inaynu ka farxinno jacketiska siino haddii cashe la'ayiin inaan cashaysiino awooddayadu intay ahayd baynu samayn doonaa waxaan rajayn doonaa inaad awoodihiin inaad nagu soo biirin doontaan hadduu ilaahay walaalkayga dhibane duruufuhu kay xigteen dhibtiyo diifta ku heshay dareenkeeda waan qabayo hurdada awada magaalada la joogtaayo magaalada anigu ma jooga adeer miyaanu jirin yaabtay ma garanaysa anu baa ka jooga magaalada boodhinta markaa guri ma jira aad u hoyato ood seexato banaanka seexataa banaanka seexdaa diilay waraabuna dimucno annaga waxna ma cuno dadkaas iska seexda cabshugurow ay duruusuhu ku jira tiimkii maalintii dhaweyto aynu jacketiska u qaybinaynay maalintaa waxay igu rood qaadisay laakiin waxaan rajaynayaa caawa inuu isagu heli doono jacketis aad u qurux badan insha allah weliba keligii uu ku xolanayo waxaan rajayn doonaa inaad xabagta iska dayn doontid nolosha inaad bedeli doontid hadduu ilaahay idmo shaqayso baalash lagu iibiyo ma shaqaysanaysaa ohtaa wallaahi caydurusyare wuxuu doonayaa inuu noloshiisa bedelo oo rajayn doonaa inuu ilaahayna isbedelkaasi ugu kaalmeeyo iska dhaafi doontaa baasha waxaan u soo qaban doonaa waxaan jacketiskii baan ayaan kuu soo qaadanaa markaa iska xidhan ka aad doonaysaad ka qaadan markaa bacd usoo qaad عدروسو لكن waxay noo balana inaan xabag dambe lagu waarkeen ka xulo caawa uu ka baahanta kanu ka weyn markaan wada socno waliba wuxuu ii sheegay maraduna xidhay jacket ka yar aan waxba uga hoosay kaas uu ka weyn kaas kan baa la eeg hadda waa kankiis عدروسو ما عشيس يا واي حاجه من مكسين مرنا 10 markaa cunaysa markaa waxay noo balanaa inaad joojinayso maxay insha Allah habagta inaad joojinayso ya bulsho wanaagsan inagana way xasuustaa magacaygi maxay maxamed ayaale magacaygi ma xasuustaa ayaale magacayga halkan waxa jiifa dabadeeda laba qof oo masaakiina maana jeclaysan inaan toosino waxaan doonaynaa haddii ay soo jeedaan inaan la hadalno haddii kale inaan dul dhigno jacketiska xaaladaas ay ku jiraan waxaa suuragal in hurdada ugu macaanada inay ku jiraan laakiin saa dhaxanta dhawr kale shaqaas ku inoolaned wallahi سكور ولا سموعني الحمد لله جاكيتكا هو مقعة ولا مقعة
يا ولد خليل والله يسود دعينا إن شاء الله خير بكل شيء يمكن أدو هدي معان بكتشرا كوركو دي هدي معان بكتشرا يعني marka ma habeenkii dibadda markaa u hoytan miya dibadda saxtan walaal dad la'aan ma tihid anigu dooraan ku jiro ayaa kula wadaagi jecel dareenkiyo murugadey walaali ihays oran dadkeenna waxaan ku ballamaynaa xabag dambe inaan ladigu haray kowdhaha intiina guryaha lehna guryihiinni baad tegaysaan caawa ama beri tirisa wixii haa hooyo u tag wuxuu eegayaa doorkii dadku ay qabtaan damiir togan baad qabtaa daryeel wacan baad rabtaa digtoor in laga dhigiyo alxamdulilah caawa waxaan soo baranay lessons ashkuur caawa casharo aad u waaweyn waxaan aragnay xaalado aad u adag laakiin waxaan rajayn doonaa insha allah inaan joogtayno hadduu ilaahay idmo hal habeenoo keliya waxba kama tarayso qayb yarun baan ku aragnay laakiin qabowga gidaarada u jiifeen annagoo soconaana xamilaynin koodharka waxaan u doorbidnay ashkuuro waxaa jira dad badanoo jacketis la siiyey dhallinyarada darbijiifka ah dad baa ka iibsada bustayaasha dad baa ka iibsada bustihii iyo cusayba xilligaasi la siiyey ay dad ka iibsanayaan laakiin jacketiska iyo ma dhigayaan jacketiska finaanadaha ma dhigayaan wuu ku seexanaya wuu kusoo toosaya marka waa sababta ugu weyn oo lagama damaacinayo xataa cid kale kama qaadanayso wuu xidhnaanaya iskama siibayo marka waa sababta ugu weyn oo doorbidnay inaan u qaybino koodharka waxaan u talagalnay bustayaasha insha allah dadyooga degan aan awoodaynin waxyaabaha ay ka gaashaantaan iyagu waxaa jira dad guryaha ku nool oo aan haysanin wax haysiistaan magaranaysa marka dadkaas waxaan isku daynaa in iyaga bustayaasha iyo wixii kale agaba nagu dari karno aynu gaarsiinay insha allah halkan baan ka wada socon doonaa hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa inaad idinkuna kaalintiina qayb weyn ka qaataan insha allah guryahoodii ka soo baxay qaarkood waxay noo sheegeen guryo lahayn absolutely waan arkayna qaarkood family problem baa ku dhacay qoyskay kaga yimaadeen cadaadis fara badan rajaynaa insha allah in maamooyinkuna ula dhaqmaan si wanaagsan oo ciyaalkaasi aan la dayrinin intooda badanna waa ciyaal ka cararaya un oo ciyaal wax weeye kiina lahaa waa la xsaabaya marka ilaahay waxaad aabe inankaasi ulbu ka cabsanaya kaa rajayn doonaa insha allah biidnillaah kuwa masaakiina kuwa badan masaakiin jiifay mid baa dhimarka aan maranaya oo suuragal ah xagga maskaxdeena ahayd haddana xaalad adag buu ku jiro dhaxantu dhabarkii kaga dhacaysay absolutely insha allah dadkeena ka warhayno tani waxay wajigii saddexaad insha allah waan sii wadi doonaa idinkuna insha allah dhankiina jirkii meel ka dhaawacma intiisa kale malada hurdada dhadhankeeda oo dandoonis wuxuu u gali dhayda dhaawaca ku yaal